Juxa hooyadiis ayaa waxay u dirtay inuu soo gado ari. Lacag ayay u dhiibtay, waxay dhahday wiilkaygiiyow bax ee ari noo soo gad. Juxa intuu baxay ayuu wuxuu aaday suuqii lagu gadaayo xoolaha. Kadibna wuxuu soo gatay ridii ama orgigii. Kadibna muxuu sameeyey markuu soo gatay ridii ama orgigii wuu saarsaday. Dusha ayuu ku ritay. Dusha markuu ku ritay uu gurigii la aaday ayaa hooyo aragtay. Waxay ku tiri waa si wax u jiraan, ma awoodi weysay ama ma fahmi weysay inaad xarig soo gadatid oo qoorta aad ugu soo xirtid oo aad guriga keentid. Kadib ayuu wuxuu ku yiri hooyo, no problem, next time ayaan samayn doonaa, mar labaad ayaan samayn doonaa. Markii labaad hooyo ayaa waxay ku tiri maanta lacagta waa inagu yar tahay ee waxaad samaysaa waxaad noo soo gadaa digaag. Intuu baxay ayuu wuxuu aaday suuqii lagu gadaayo digaag. Kadibna wuxuu soo gatay digaag. Wuxuuna soo xasuustay maalintii la dhahayay hooyadiis ay ku lahayd ma awoodi weysay ama ma xasuusan weysay inaad xerag soo gadatid. Waa ku soo dhacay. Digaaggii asagoo gacanta ku wado ayaa wuxuu maray meeshii xarig lagu gadaayo. Xarig ayuuna soo gatay. Wuxuuna sameeyey digaaggii ayuu ku xiray. wuuna soo jiiday. Gurigii ayuu wuxuu keenay digaaggii oo dhintay. Hooyo ayaa waxay dhahday si wax u jiraan. Wuxuu yiri soo adiga iguma dhihin markaad soo gadatid wax walba xarig soo qaado ee ku soo xir. Marka hadeertaan sidaas ayaan sameeyey oo aan ku soo xiro oo kale. Hadaad barnaamijka heshay share garay soo meel fog gaaro muuqaalkan mahadsanidin.